xaruntan waxa lagu ciyaarsiiyaa ciyaalka maalintii waxaa imaada boqolaal caruura kama yarba meel kasta karsan iyo ganacsiyeeda ninkan muxuu ka sheekeynayaa sabaayad lagu iibiyo filaya sabaayad wada adeer weeyaan hilib udgoon baa isoo uray hilib udgoon waxaan joognaa cusub xarunta ciyaalku ku ciyaaraan maanta xaafadda masallaha goobtan waxa weeyaan masalla bari xaruntan waxa lagu ciyaarsiiyaa ciyaalka maalintii waxaa imaada boqolaal caruura oo waalidkood la socdo marka gudaha waxaa jira meel ciyaalku ku ciyaaraan marka wallaahi waxaa ku jira boqolaalba ku jira caruura marka anigu weli maan gelin laakiin waxa weeyaan goob caruurta lagu ciyaarsiiyo dhammaan magaalada Hargeysa looga yimaado waxaasoo dhan oo baabuura oo baarking ku jirta waxay u yimaadeen inay caruurtooda meesha ku ciyaarsiiyaan marka halkan waxa weeyaan masallaha meesha waxay noqotay goob ganacsi halkan hore haddaynu u soconno waddadan waxayna geynaysaa kantaroolka koonfurta magaalada Hargeysa haddaynu sii dhaafno ishka goobka airportka agagaarkiisa noocaas ayayna geynaysaa marka iminka sanad ama 2 sano ka hor halkan population badan ma jirin iyo ganacsiyo badan kuma oolin laakiin hadda waxay noqotay goob ganacsi oo dad badan iskugu yimaadaan meherado badan ganacsiyada badan iyo horumar iyo wadadan oo la sameeyey wadada caadi lama arkay roob baa daayay shalay toole marka wadadii ciid cas baa fuushay maadaama dhulkeena ciidiisu cas tahay daadku markuu soo rogmado wadada ay qaranaysaa meherado waaweyn oo fooqyo waaweyn lagama dhisin goobtan oo wadada soo eegaysa oo business iyo waxyaabahaas laakiin meherado yarar iyo dhismayaal gaagaaban waa ka dhisan yihiin oo fara badan marka meesha way koraysaa marka qofkii doonaya ganacsi inuu halkan ka samaysto oo kale intuu u fikro u imaado uu qorsheeyo ama qofkii dhul weyn ku haysta waxyaabo badan buu ka samayn karaa xaafaddii masallaha guryo qurux badan baa meesha ka dhisan horumar baa ka socda bal ka warama meeshan gormayda ku dambeysay commentiga noogu soo qora iyadoo sideeya aniga halkan soo maro waxa iga dambeysay intaan ka maqnaa waa soo buuxsanta masha Allah hoteelo dukaamo meelo lagu qaylo waxaasa u badan meesha small business marka waddanku wuu horumarayaa wuu soconayaa dukaamo yarba meel kasta karsan iyo ganacsiyeeda sagaasadan yaryar iyo propaganda waxay ku geynayaan suuqii haddaad raacdo marka gawaaridan yaryar iminka meesha maraysa
waxay u rakaabsanayaan sidii baskii oo kale. marka meeshan ganacsigeedu aad iyo aad buu u socdaa. qofkii ganacsiga ka furta waxay u muuqataa in ay ku fiican tahay goobtani. marka goobta ayaan la mogaanina. maasha allah, maalin maanta kasii dambaysa way si fiicnaanaysaa. dadku waxay u baahan yihiin in agagaarka waddada ay dhir badan ku beeraan say meeshu green iyo ganacsi iyo iskugu biiraan. haddii intuu isu soconno waxay tegaynaa controlkin xaggaa ka tegaynaa istabta. marka haddaan bidix u leexano waddadii isha ka tegaysayban qabanaynaa. marka maanta in badan baa lugeeyey. keligey baa socda, keligey baa meesha socda maanta. cidna lama socoto. dadka meelahan ganacsiga kule waxay leeyihiin ninkan muxuu ka sheekeynayaa sabaayad lagu iibiyo filaya. sabaayad wada adeer weeyaan. hilib udgoon baa isoo uray. hilib udgoon. meesha markaa saasay u kala kacsan tahay. dad badan baa yidhi meelo badan meelaha marka soo socoto noo soo duub. anagu malaha waddankii waanu ka maqannahay. marka dee waa ka meeshaas maanta soo duubay inay asxaabta fideogana dadka kale gaadhsiiya u sheergareeya. garateen waa kaas dhacdhac ku siiya dhacdhac. meesha kolay qaad baa u badan. aad baa meesha loo murqaama ayaan filayaa. xaggana waa hudhaa Ethiopia baan filayaa isaguna. marka aad baa meesha loo murqaamaa. marka meesha waad arkaysaan dhismayaal badan oo loogu talagalay goobo ganacsi ayaa meesha ka socda. taa la shaqeynaya ma arkaysaan. talo halkan maharad ma ka heli haddaan kareyses idhaa. meelaha san oo kale u istiraatiijiga maarka hadaad istiraado kareyso waa inaad marka guriga la bilaabo iyo aasi waxaan o dhan waxa laga yaabaa in lacagtoodii lasii bixiyay xitaa kiradii inay markaa meeshu waa halkana waa suuqii sariibadda. vegetableskii baa lagu iibinayaa. basashii iyo khudaartii iyo geedgaabkii waxyaabahaas lagu iibiya halkan. adeeg maal baa la idhaha. adeeg maal. mid kalena waa ku xiga. ruus baa meesha suran. ruus baa suran iyo basal baa soo uraysa. basal halkana waxa weeyaan qalabka dhismaha lagu iibiyaa. horaan u socon doonaa ilaa xaggaan hore aan gaarayno. maanta cadeed ma jirto. jawigu uu iska rooban yahay. gawaaridan ma arkaysaan dushooda waxa saaran caagado badan baa saaran. inaad arkaysaan iyo in kale mooyaan gaarigaasoo kale xamuulka ah. caagadahaasoo kale magaalada qaar baa ururiya caagada arkaan ma qaadanaya. haddii caagada dayacaan xadaya halkana la keenaya waa la iibinaya. marka caagadaha dhowrka waa la miisaamaya waan filaya. waa laga iibsanaya caagadaha marka la qaado waxaa la geenaya Ethiopia. waxaan filayaa Ethiopia waxa ku taala warshad malaha caagadahan iyo waxaan dhalaaleysa oo caagada cusub ka samaysa ama nadiifisa. somehow Ethiopia la geeyaa. waxaa jiro sidoo kale daasadahan meelahan dadaadsan iyo birahan. birigii hore Hargeysa waxa uu jiray meel kasta biro.
بريه إمك هذي بريه ربما لقي له هو الحظية مركا قارب قادنيا meelaha oo kala meel waxa jirta biraha lagu iibiyo bilbaxda bilbax wala bilbax biraha aan la isticmaalayna halaayada meelaha yar yaala marka kuwaas laga iibinaya kiloogi ba waxa siiyaan qiimo go'an marka saas kala dad ba Itoobiya u dhoofiya marka almost 10 minutes baan soo lugeynay ay filaya jimacsi marka markasta hore loo soo socdo xagga controlka suuqu uu si yaraanaya sida arkaysan laakiin hadana sanadka bacdi bartan waxay soo noqonaysaa meesha ugu xaamsan markasta meesha dhinaca si xigta ayaa la jecel yahay aad baan salaamaya assalaamu calaykum